السلام عليكم أصحابتي خالقة maantana waxaa idin wadaa dabaq kale dabaqa marka aan gudaha u galno qaybta wajiga hore sidaanay ahayd oo barxadda ah suuligina qaabkan ayuu u ekaa maanta waxaan rabnaa inaan wax kala kicino kal ilaa baa ka dhigno oo qurxino guriga oo dhan dabaqa waxaan rabnaa mutulaliisa maanta inaan kala kicino waali ah ka dhigno before and afterkiisana waa idin tusayaa qaybta mutulaalka waa qaybta iskafaalayaasha alhabta iyo wax la saaranaya mutulaalkiisa sidaas waa la kala kicinaa guys wow qaybta hadda dabaq marka soo galinay wajiga ku sheega waa kana sidaana loo kala kiciyo guys kal iyo laba laga dhigay kambaniga deegaan dhowr wax uu ku kala kicinaa suuligan xataa ay la feeri suuliga hadda sida arkaysan xogaa zaid ah laakiin hadda qaybtan kale suuliga saana laga dhigay taas hadda way ka darnay hadda tan saana laga dhigay waali saana loo kala kicinaa waa loo cadeynaa oo dhalaalna agab walba nadaafada la isku geena kal iyo laba laga dhigaa guys kambaniga deegaan dhowr kaga hagarbaxa wuxuu yaqaanaa hagarbax waxa loo customerkiisa uu ka farxinaa qaybtana ujeedina waa qaybta iskafaalaha oo hadda idin soo sheegay oo waa la kala kicinaa la dhahay oo mutulaalka saaragtan mutulaalka sida laga dhigin oo ujeedana guys ilaa fool ku taalo qolkan xataa waa kana sidaana laga dhigo loo kala kiciyo asxaabta qaaliga kambaniga waa kambanigiina qof walba u baahan in loo nadiifiyo guri ama dabaq raba in loo nadiifiyo u sheer garee adaa naga caawin karo aad oo maasan tahay sida qurux badan aan noola joogtay waan kaaga mahad celinayaa subaxa galnay ilaa galabta casarka xataa wayna la gaartay marka si u qurux badneysino dabaqaas adinkana sidoo kale saas idin yeelana aad oo maasantiin sharaf aan leedihiin ciwaan kor nooga qaada mahadsanid